waxaan isugu nimid inaan ku wareejino guddiga dhismaha wadada Berbera ilaa Raaribuul oo runtii shaqo weyn soo qabtay lacag qadarkeedu yahay $20,000 oo shirkadda Telesom ay ugu tala gashay inay ka qayb gasho qaybta hore mashruucaasi dhisidda wadada waxa maanta halkan la fadhiya oo aan guddoonsiinaynaa deeqda lacageed guddiga is-abaabushay ee community-gaasi ka mid ah waxaan runtii inta aanan guddoonsiinta bilaabin aan u mahad celin lahaa dhammaan ciddii isku hawshay hawshan ee runtii hawsha khayriga ah ee ummadda dhan ay wada leedahay ka qayb gashay waxaan u mahad celin lahaa dhammaan shirkadihii dawladda hay'adaha iyo cid kasta oo is-abaabushay runtii oo khayrkaasi ka qayb gashay waxaan runtii u mahad celin lahaa odayaasha isxilqaamay howlahoodii gaarka ah uga yimid aad iyo aad baad u mahadsantihiin baan leenahay waxaan imika bilaabi doonaa gudageli doonaa inaan hawshii lacageed ku wareejiyo maxamed axmed faarax food oo ka mid ah odayaasha guddigan is-abaabushay wadadaas loo dhisayo Berbera ilaa Raaribuul jazakallahu khayr aad iyo aad baad u mahadsantihiin وقرنتي إلهي بقى سبحانه وتعالى ما هذا أردن إسكاله وحن كذبنا وحن عادي عاد وقوم هذا قلنا هذا عمر حسن يعلى صالح لنعيق فدي أنا وجودي دي كوكيلا وده دي سي سي هيدي دي سي سي وده مهم لبضبا وحنو عادي عاد وقوم هذا علينا شركة تليسوم تحقلينتا iyo deeqdan 20,000 ee ay ugu deeqday wadadaas shirkaduna muuqtan ma aha wad ku cusub qaybaha ay ka qaadato horumarka dalka waa wax runtii cid walba ay u ogsoon tahay waxaan anagu si gaar ah run ahaantii ugu mahad celinaynaa tixgelinta qadarinta ka qaybgalka deeqda waxaan leenahay shirkadan ilaahay ha barakeeyo iyo dadka ka shaqeeya dhamaantoodba runtii hadalka intii muhiimka ahayd waxa qaatay madaxda Telesom iyo gudoomiyahayaga waxaan kaliya oo halkan ka xusi lahaa runtii shirkadda Telesom oo hormood ka ah inta badan wax qabadka dalka iyo horumarka maaragtay adeega loo qabanayo bulshada dhinac kastaba maaragtay ha ahaatee sida wadooyinka iyo dhakhtarada iyo magaranayay iskuulada caruurta dilaahay ka dhigaya magaranayay agoonta iyo wixii la mid ah masaajidada sidoo kale ayaa waxaan runtii halkan uga soo jeedinaynaa mahad aad u ballaaran iyo tixgelin maaragtay aan runtii u soo jeedinayno campaign ee shirkadda waxaan leenahay marka ugu horeysa جزاكم الله خير الجزاء إلهي جزاء بدن هذه كسيو مركل لبعضنا وحويان وهرمر وناكسن أما وحقبض وناكسن وأتكون تلابستين هرئي أي مكوا وحنو كلو مارتي يدنكو برارجيننا أما يدين سو تشيديننا وحي عاد وحكا قبتين إيو سيدا عاد وغا قيب قادتين dhismaha guud ahaan iyo gaar ahaanba maartay dalka iyo dadkaba inuu yahay runtii waxaad iyad wanaagsan oo lagu daydo ahna sunno wanaagsan magaranayay oo dadka kale iyo shirkadaha kale kambaniyada kale dadka wax haysta ay ku dayan karaan magaranayay iyadoo ay xusid mudan tahay sida shirkadaha kale ee ka qayb qaatay arimaha sidan oo kale ah marka waxaan ku soo gabagabeynayaa nimayahow aad baad u mahadsantihiin kambani ahaan iyo maamul ahaan iyo haddii ilahay ka dhigay dad ahaanba runtii aad baad u mahadsantihiin anagu de waxaan nahay laftigeegu customerkii shirkadda baan nahay oo dhinac haddii ilahay ka dhigo waa ka wada shaqaynaa dhinaca kalena dantii guud baanu haddii ilahay ka dhigo aynu ka wada shaqaynaynaa oo anagu hawshii baanu haynaa idinkuna adduunkii baa bixiseen waanad ku mahadsantihiin waxaanan aad iyo aad maaragtay ugu rajo weynahay
inaan noqon intii ugu dambeysay ee ay noqotay intii ugu horeysay haddii ilaahay ka dhigo kulamo kale dambena aynu yeelano waayo mashruucani sida aynu tilmaamnay wuu bilowday dhammaadkiisuna ma dhow haddii ilaahay ka dhigaayo marka insha allahu tacaala fursadaha dambe iyo jaanisada dambe soo bixi doonana way idinku qayb qaadan doontaan waan idinku dhiirigelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabillahi towfiiq